waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo sheekada Amiir waa wiil Soomaaliyeed wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka wuxuu ahaa nin shaqaysanaya awood leh oo na firfircoon Amiir waxa ka dhashay ama la dhashay gabdho aad u fara badan iyo wuxuu la noolaa hooyadiis oo joogta Mareykanka si kasta ha ahaatee Amiir cidooda aan ugu yeerno landheerayaasha Soomaalida Amiir wuxuu ka dhashay adiga qabiiladan waaweynka oo isku haysto landheerayaal iyo waxaas inay yihiin gabdhaha asaga la dhashana waxay ku milmeen ama ay ku baaba'een difaaca iyo ka hadalka iyo buuqa qabiileysiga ayagoo aaminsan hatta sometimes dadka waxay ahaayeen hatta diinta ay kaga horeyso qabiileysiga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Amiir hadartan wuxuu ka soo baxay xabsiga sababta uu u galay ayaa rabaa inaan idin kaga sheekeeyo Amiir wuxuu damcay inuu guursado gabar isjeclaayeen isbarteen laakiin nasiib daro familka asaga ka dhashay sida gabdhaha walaalihiis hooyadiis ayaa ka soo horjeestay bilaabay inay caayaan ka soo horjeestaan lana arkay gabadhii iyo asaga inay isku dhow yihiin inay isguursan rabaan oo ninkaana waxba ka maqleynin reerkooda markay u sheegeen ay dhaheen war gabadhan waa cidahaas iyo annagana isma galno isma jeclin horumarkeena ka xun yihiin qabiilkeena ka xun yihiin saan waaye asaga wuxuu dhahay tiina adinka idin taala adiga nin cidaas qabtaa gabadha walaashiisu la hadla adigana nin cidaas uu qabtaa waay aniga adiga ma rabno ilmaha abti waxyaalo noocaas oo kala ayay kula dhaqmeen asaga waa diiday inuu dhageysto wuxuuna rabay in uu gabadhaasi sida ay tahay u guursado laakiin nasiib daro markii fircoon ama cirfiid ama shaytaan uu adiga walaal kula yahay dhan walba ayaa laga soo maraa ugu dambeyntii gabdhihii walaalihiis iyo hooyadiis waxay u qalab qaateen ee dhar u xirteen in ninkaasi uusan gabadhaasi guursanin gabadhii asaga madaxa isu geliyeen waa isu dirreen gabadhii ayay caayeen gabadhii ayaa reerkooda xanaaqa dhaaday ninka hadda reerka hadda saan ku caynay saan ku yeelay guri marka ugu tagtid maxaa u maleynay waaba ku dila adiga gabadhii sidii ayay wiilkii ugu dambeyntii waxa la go'aansaday hooyadiisa ee go'aansatay wiilkaani in ay gabar reerka tolka cidda asaga isku qabiil yihiin ay ku darto gabadhii waxa loo doonay gabar joogto magaalada ama xaafadda ay ayaga ka soo jeedaan sidii ayaa gabadha wiilkaani gabar lagu baray gabar markii lagu baray ka damba wuu baxay gabadhii ayuu arkay wax hadal badan iyo sheeko badan ma dhaxmarin sababtoo gabadha already waaba loo doonayba adiga gabadhii ayaa lagu daray ninkan gabadhii ayuu la joogay 3 bilood ayuu la joogay uu ka soo tagay wax uur uma qaadin laakiin xiriirkoodii ayaa soo yara dhismay maadaama dad aanan is aqoonin 3 bilood la isbaray 3 bilood ay wada sheekaysteen 3 bilood ayay isbarteen 3 bilood ayay wax walba ku dhamaadeen ma fahmi sidaas daraadeed sanadkii damba ayuu laabtay gabadhii ayuu 6 bilood la joogay wuxuu kaga soo tagay iyadoo uur leh waxayna u dhashay wiil cabaar markuu inta joogay ayaa waxa lagu qasbay in uu gabadha Mareykanka keeno uu gabadhana ay yihiin adiga ilma adeero qabiilka landheerayaasha iska fahanka ee tahay adiga waxyaalo noocaas oo kale laakiin waxa u qorsooneed qoftan uu guursaday reerkooda ay ku dareen in ay tahay cirfiid shaydaan number 1 ay tahay ugu dambeyntii waxa lagu qasbay ama ku qasab ku noqotay Mr. Amiir inuu gabadha Mareykanka keeno wuu tagay waxyaalo u xarxareeyay wuxuu geeyay Djibouti ayaa gabadhii laga soo qaaday inta la keenay markii inta la keenayay waxay lahayd uur 3 bilood nasiib wanaag waxay u dhashay cunug kale ka dambe cunug kale markay ay u dhashay Mareykankana la isla soo degay nolosha dhabta ahaana la wada galay ayay gabadhii waxay la soo baxday waji kale markaa ku leeyahay cirfiidnimadii iyo xumaantii ku jirtay ayaa soo baxay ayadii ninkii waxay bilaabeen isdil buuq qeelo reerkiyo dhismila ninkiyo stress qaaday nafta adiga wax walba gabadhan waxay la saaxiibtay naaga kale oo Mareykanka joogo oo ku soo gubtay suxulaha ku soo dhamaadeen ilaahayna ka furtay
oo dee ana adduunyo kale iyo ilmo kale iyo waxaasina aan rajo ka lahayn oo xaaladahoodana simsam iska yihiin oo hala sii daasta xurriyadda single mother-nimada iska qaatay oo dee waxay rabaan sameynayaan body ka body habeenkii meeshii la rabo la tagaayo safar la iska aadayo ilmaha inta dad loo dhiibto la iska baxaayo kuwaas ayay ku biirtay ayadii iyo wiilkii waa isfahmi waayeen waxay sheekadii ku soo dhamaatay inuu wiilkii xaafadda iskaga tagay uu dhahay walaalay inta aasaan tahay aniga adiga ma wada joogi karno aniga waxaan kuu keensaday oo kuu guursaday in aniga adiga aan noqono saan ee ma ahan inaan kala tagno idea markii aniga aan ra'yi kuu keeno ama wax kuu sheego ama aan rabo inaan wax kuu bahalkeystana waxa iigu jawaabaysaa America ayaan joogaa ee saan caqli gal ma ahan ee maxaa tala ah waxay tiri walaal adaa fudud وياعي كرتا أنيقو كما دهاي جوك أنيقو كما دهاي بح لكن هدا أديقا بحديد أقو أنستي إنا بحديد ودادا واقو فرانتها سلام عليكم ويلكي هو يديس قبليه waxay dhaheen adiga gabadhaada markuu arinta u sheegay adiga inaagtaada adinka idin taala anaga ciidan qaraabanahay ehel isku dhawaanahay ma adi ugu dambeyntii waxay noqotay wiilkii inuu xaafadii ka tago xaafadii markuu ka tagay kadib ayaa dadkii soo dhaxgaleen ehelkii soo dhaxgaleen wili wuu furay waxbuu ku furay dalaaqadii ma aqaan ma 16 uu ku furay 17 wax loo ku furay adi gabadhii wixii markuu ku furay kadib waa isku soo celi markii la isku soo celiyay ayaa hadana isla laba saddex habeen afar habeen markii joogaan hadana istirreen madaxa isla galeen waxay noqotay inay gacan isku qaadaan markii isku qaadaan waxay u wacday police asagana uu ka cararay meeshii informationkiisa bixisay wiilkii waa la soo raadiyay adi arintii waa la xiliyay ayada hadana way drop gareysay dacwadii way ka drop gareysay sidii ayuu hadana waa la soo celiyay mar saddexaad waa idin waxa soo dhan bal laba bil dhacaysa naagtani shaydaanimadeeda iyo bahal kala ninkani wuxuu ku sameeyay ama laakiinoo markii la iska qabsanayay darbaaxadii uu ku dhuftay ay xasuusteen yamta iska dhahday ma soo celiseen ha ninkeegii oo guriga jooga tiri habeenkii ugu horeysay xaafadda la joogay habeen labaadkii aaba dhacday tarafri baa dhacday meeshii waxa lagu qabtay ciyaaro friendly match la qabtay ninkan friendly matchkii waxa la isku ogaa 0-0 inay ku dhamaato laakiin ongol iska dhali markaan ku leeyahay qoftii ayaa sariirtii ayaa dhacday adi arintii sariirta dhacday qoftan arintii sariirta markay dhacday uu ninkii xaaladiisa dhameystay uu seexday banaanka tagtay 911 wacday police imaaday waa la qabtay waxay tiri ninkan manluit watan idin soo wacay watan saan dhahday maantana xoog ayuu wax iiga qaaday ha uu ikufsaday waa ninka ku qabay saddex kugu qabay xalaal kugu qabay diin kugu qabay ilmo u dhashay booliiskii waa la qabtay waa soo imaadeen banaanka la aaday asaga la soo qabtay gabadhii la qaaday isbitaal la geeyay asaga la qaaday waa la baaray wixii ba wax la qarinaayo miya waxaas qoftan iyo qofkan waxa waaye ciyaaro friendly match qabsadeen ciyaarahaasi xataa 1 hour kama soo wareegin waa qoftani waxa waaye golkibihi wili dhulku yaala ma fahmisin soo marka arimiya ku soo baxay ninkii xabsi dalaq la siiyay xabsiya lagu xiray maxkamada la saaray waxa lagu xukumay 7 sano xabsi ah 7 sano soo dhameystay waxa loo geliyay rekoorka ugu jiro inuu yahay kufsada Mareykanka hadii aad kufsi sameeysid ama aad qof ku xadgudubtid xabsi laga soo sidaayay in yar nolosha inta ka dhiman waxa ku rajisgareysanaysa ama ku qornaanayso inaad tahay kufsada xaafad walba aad tagtay xaafada markaa ka guureysid xaafad kale aad tagaysid waxa ku qoran kufsada ninkii saaxiibkay ahay maskixiyan ayaa filooyin isdaba mareen islaantii iyo gabdhihii waxay bilaabeen quraana saareena isbitaal la geenaa sanad tagaya waxaasna maxaa u keenay marka maanta hadii aad isweydiisid arintaas maxaa keenay maxaa sababay waxa sabab waxa waayay hadii qabyaalada iyo quranka iyo qabiilka niyada kaaga jiray isleedahay qof walba oo qabiilkaaga kugu ah waa wanaagsan yahay ma wanaagsano arintan oo kale waa kugu dhici kartaa
كفير سجوركاغا قبيلنا وحبكو مترو آخرنا وحبكاما كاما بحنايا أدوننا وحبكو متراي واي أدونك تنو كو جيسان كرا